tacliin iyo cilma lagu tanaaday. Atahualpa waxa uu ahaa boqor ka taliya boqortooyadii ugu awoodda badneed ee ka jirtay Ameerikada qarnigii 15aad ee la odhan jiray Inca. Waxa uu awoodihiisa ka mid ahaa inuu u talinayay ciidan gaadhaya ilaa 80,000 oo askari, hantina warkeeda daa. Mar keliyaata ayaa waxaa boqorkan ku habsaday masiibo weyn. Waxaa kusoo duulay ciidan muquuniyey awooddii ay ku fadhiday boqortooyadii Inca, oo waqti yar gudaheedna khasaaro baan u geystay. Xitaa ciidankan meel allaale meel ay ka yimaadeen la fahmi waayey waxay ku guulaysteen inay afduubtaan boqorkii dhammaa ee Atahualpa. Intaa kadib waxa ay heshiis madax furasho ka ogolaadeen dowladda Inca oo xorriyadiisa dib loogu soo celinayo boqorkii la qafaashay. Madax furashadu waxa ay dhammeyd dahab buuxin karaya qol cabirkiisu yahay 6 mitir oo ballac ah iyo 5 mitir oo dherer ah. Ciidankii duulaanka ahaa waxa ay gaadheen heer kibir iyo cudud muujin ah inay madax furashadii markay gacanta ku dhigeen ay ka baxaan ballantoodii oo halkaa ku dilaan boqor Atahualpa. Markaynu halkaa marayno waxaad isweydiinaysaa ciidankan baani maxay ahaayeen. Waxaana sawranaysaaba laga yaabaa humaagyo cabiraya awooddooda, laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay ciidankan waxaa soo hoog iyo khasaare ah dhaliyey. Waxa ay dhammaayeen 168 askari, 32 ka mid ah waxa ay ahaayeen Fardoli. Nimankan waxaa hogaaminayay nin la yidhaahdo Francisco Pizarro oo ahaa conquistador ama abaanduule ka socday boqortooyadii Isbaanishka ee markaa awoodda badnayd. 168 askari oo keliya ayaa kumanaan ciidan ah iyo boqortooyadii Inca oo raadkeeda ilaa imika la hayo dumiyey, boqorkoodiina ceeb iyo sharaf dil ka bacdi madaxa ka gooyey. 168 kanini waxa ay qariib ku ahaayeen dhulka ay waxaasoo hadimaha ka geysteen. Inta ay dhulka gaalaabaxayeen xitaa hal askari kama dhiman. guul daba socota guulanbeed oo wax lala yaabo oo dhalanaya su'aalaha ay ka midka yihiin maxaa dhaliyey kala duwanaanshaha awoodeed ee baaxadda weyn halkaasi ka dhacay. Sidee bay 168 nin oo keliya ahi oo duulaan ku ah dhul cusub oo aanay garanaynin ugu babacdhigeen ciidan 500 oo jeer ka badan iyaga oo aanay ciidina ka dhiman? Si aynu jawaabta su'aashan usoo gudbino haddaba waxaaynu maanta adeegsan doonaa buugga u qoray ninka la yidhaahdo Jared Diamond ee la yidhaahdo Guns, Germs and Steel. Jared waa taariikhyahan iyo juqraafiyahan wax ka dhiga jaamacadda UCLA ama University of California, Los Angeles. qoraagu isla markaaba waxa uu ina siinayaa in sababaha muuqda ee ka dambeysay guusha Pizarro iyo ciidankiisa ay ahayd hub ka kooban qoryo iyo seefo ka samaysan xadiid iyo weliba jeermisyo dhalinaya cudurro ugub ku ah geyiga Ameerikada. Saddexdan sababood laftigooda waxaa ka dambeeyey oo ay maxsuulkooda ahaayeen asbaab kale oo badan. buugga dhexdeeda su'aalaha uu qoraagu ka jawaabayo marka laga yimaado kuwa sare waxaa ka mid ah maxaa sababay in albaxnimooyinkii adduunka ka hana qaaday ay badanaa uga soo unkamaan labada qaaradood ee Aasiya iyo Yurub? maxaa sababay in dadyow iyo albaxnimooyin kale oo ka kacaamay qaarado kale aanay u gaadhin horumarada dhanka teknolojiyadda iyo adeegsiga agabyada kala duwan ee ay gaadheen kuwii ka dhashay Eurasia? ma dadka deegaanka alle ku beeray ayaa ah qaar dooran oo hidda-sida ahaan ayay uga wanaagsan yihiin dadyaga kale ee adduunka, mise waxaa jira wax ka baxsan abuurkooda jismi ama caqli oo sababay inay hanaqaadka intaa leeg sameeyaan? jawaabtu abuurka ama sarreynta dadka Eurasiyaanka ah kuma jirtee waxa ay ku jirtaa dhulka iyo deegaanka alle ka beeray dadka laftigiisa ayuu qoraagu leeyahay. oo dhulkaasi waxa uu nasiib u helay ayuu leeyahay faa'iidooyin badan oo sababay inay ka samaysmaan xadaarado ku dhisan beero iyo wax soo saar. inta fideoga ka hadhay haddaba waxa aynu isku dayi doonaa inaynu qaadaadhigno inagoo soo koobeyna faa'iidooyinka uu dhulkani dheer yahay meelaha kale ee sababtay inay ka horumaraan deegaanada kale. waxbarashada ayaa ah sababta ugu weyn ee dhalisay inay kala horumaraan labada qaaradood iyo labadan dowladood ee aynu hordhexeena kusoo sheegnay. waxbarashadu waxa ay aasaas u tahay horumar oo dhan. marka bulsho hesho dalag iyo cunto joogto ah waxaa halkaa ka dhasha deganaan iyo taran bulsheed. adduunka goobihii waxbarashadu sida madaxa bannaan uga hana qaaday waa ay badnaayeen. waxaa ka mid ahaa China, Afrika, Ameerikada iyo Aasiyada galbeed. weliba meesha la yidhaahdo bisha barwaaqaysan ama the Fertile Crescent oo iyadu ah meeshii ugu horreysay ee inta la og yahay waxbarashadu ka hirgashay. halkan ugu dambaysa ee bisha barwaaqaysan haddaba waxay noqotay meeshii asaaska u noqotay xadaaradihii ugu horreeyay adduunka soo mara ee ku tallaabsada horumarada maamuleed iyo teknolojiyad. deegaankani muxuu u noqday weeye haddaba su-aashu kii ugu horreeyey ay ka hirgasho waxbarashadu. qoraagu waxa uu kusoo gudbinayaa buuggiisana asbaabo badan oo ay ka mid tahay in marka la barbar dhigo meelaha kale ee aaggaas ku yaraatay ilihii ku habboonaa qaraabsiga iyo ugaadhsiga oo bani aadamku markiisii hore ku tiirsanaa. sidaasi la ajligeedna dadkii halkaa deganaa baahay ay u qabaan wax soo saar waara ay u wareegeen waxbarashada. cimilada dhulkaas oo ah mid jiilaalkiisu gaaban yahay halka xagaagiisuna dheer yahay taasoo taageeri karta waxbarashada. qodobka ugu muhiimsan oo ah in deegaankaasi markiisii horeba uu hodan ku ahaa ilaahayna ku beeray geedihii ay ka farcameen dalagyada ay ka midka yihiin sarreenka, shaciirka, masagada iyo galleyda oo ah dalagyadii ugu horreeyey ee baniaadamku beerto kuna hana qaaday. in dalagyada dhulkaas laga beeray ay badankoodu ahaayeen qaar iyagu iskood u tarma oo aan u baahnayn in hawl la geliyo markoodii horeba. in dalagyadii halkaa laga beeray ay kaafiyeen dadyogii halkaa ku noolaa noqdeenna cuntooyin iyo dalag nafaqo yeesha macdan ahaanna isku dheeli tiran oo taageeri kara
korriinka jidhka, in halkaasi ay ku abuurnaayeen ilo biyood oo joogto ah oo sahlay in dalagu ka beermo kadibna uu kobco. taa kasoo horjeedkeeda meelihii kale ee waxbeerashadu ka hana qaaday sida Ameerikadu nasiib uma yeelan. waa marka koowaade geedo iyo dalag ku habboon waxbeerasho oo u kala duwan sida kuwa ilaahay kasii beeray deegaanka bisha barwaaqaysan lagu magacaabo. talabaad, Ameerikada meelihii xadidnaa ee waxbeerashadu ka hana qaaday sida Yurub ama Aasiya oo kale ma aysan haysan xayawaano waaweyn oo ay ku fashaan beeraha oo saaladoodana u adeegsadaan bacrimiye ahaan. tani waxa ay sababtay in aanay waxbeerashada heerka Eurasia ay gaadhay aanay marna gaadhin Ameerikada. ta saddexaadna waa in xadaaradihii Ameerikada ka abuurmay aad uga dambeeyeen dhigooda Eurasia markay noqoto bilaabidda waxbeerashada. bani aadamku waxa uu meelo kala duwan iyo deegaano kala duwan oo adduunka ka mid ah ka hindisay dhaqashada iyo adeegsiga xayawaanada noocyadiisa kala duwan. hase ahaatee waxaa lagu kala tegay horumar ahaan ayaa waxa uu noqday dhaqashada iyo adeegsiga xayawaanada qarada weyn waa sida qoraagu u dhigay oo marka la barbar dhigo xayawaanada waaweyni waa ay ka faa'iido badan yihiin kuwa yaryar ee tusaale ahaan ay ka midka yihiin digaagaduhu ama bakayluhu. si lamid ah waxbeerashada iyo nasiibkii u sahlay in Eurasia noqoto meeshii ugu hodansaneed ee laga helayay dalag noociisu kala duwan yahay tayadiisuna wanaagsan tahay ayaa isla qaaradda nasiib u yeelatay inay hodan ku noqoto xayawaano miisaankoodu ka badan yahay 50 kiilo dhirta ama cawska cuna oo aad u badan oo ay sahlan tahay ama u nugul in dabjoog laga dhiga. qoraagu waxa uu si ballaaran buuggiisa uga hadlayaa sifooyinka xayawaanada qaarna ka dhiga qaar ku habboon dhaqashada qaarna aanay ugu habboonayn dhaqashada. waxaanu rajaynaynaa insha allah inaanu video kale ka samayno qodobkaas macluumaadkaas oo aad u dheer daraaddeed. marka waxa uu qoraagu leeyahay in xayawaanada ku habboon dhaqashadu ay ka buuxaan Eurasia oo tiraba 27 nooc oo xayawaanada waaweyn ee noocaas ah laga helayay Eurasia. 27ka waxaa noqday qaar la dhaqdo 13 ka mid ah. waxaad barbar dhigtaa Ameerikada oo hooy u ahayd tiraba 24 nooc oo xayawaanka ka mid ah oo ku habboon dhaqashada. hase ahaatee waxaa lagu guulaystay in la dhaqdo mid keliya oo ka mid ah. ama waxaad barbar dhigtaa Australia oo iyada laga helay hal xayawaan oo weyn kuna habboon dhaqashada laakiin bani aadamkii halkaa ku noolaa kuma uusan guulaysan inuu dhaqdo xayawaankaas. qoraagu markaa waxa uu leeyahay in xayawaanada waaweyn iyo dhaqashadoodu ay kala geysay labada qaaradood oo midna waxa uu nasiib u helay 13 xayawaan oo kuwa waaweyn ah halka Ameerikaduna nasiib u yeelatay mid keliya. 13ka xayawaan waxa ay si toos ah uga qayb qaateen horumarkii ballaarnaa ee bulshooyinkaasi ku tallaabsadeen. oo tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaystay hilibkooda iyo caanahooda, dharka iyo waxyaabaha la halmaala ayaa looga faa'iidaystay hargahooda. waa lagu safri jiray oo masaafo dheer ayaa lagu goyn jiray ama waa la raran jiray. beeraha ayaa lagu qodan jiray oo waxa ay sii xoojiyeen qodobkii koowaad ee aynu taabanay ee waxbarashada. saaladoodana waxaa loo isticmaali jiray fertilizer ahaan waxaana ay si toos ah uga qayb qaadan jireen dagaalada sida fardaha oo berigii hore ku jiray maqaamka kaarayaasha oo kale. haddaad maabka eegtid labada qaaradood ee Ameerikadu waxa ay u dheer yihiin dhanka waqooyi koonfureed halka Eurasia ay u ballaaran tahay dhanka bari galbeed. faa'iidada koowaad ee tani leedahay waxay noqotay waa sida uu qoraagu u dhigay inay fududaatay faafidda waxbeerashada iyo dhaqashada xooluhu oo wuxuu leeyahay in badanaa deegaanada isku aluurka ku yaala teesanna bari ilaa galbeed ay badanaa isku cimilo yihiin saacadaha maalintuna isku mid yihiin. waxaa kaloo ay iska shabahaan dhanka helidda roobabka iyo wixii la halmaala. sidaa la asligeed dalag lagu ikhtiraacay tusaale ahaan Japan waxaa si fudud looga beeri karaa Talyaaniga oo dalagaasoo cimiladii uu u baahnaa labada meeloodba waa uu ka helaya. halka dhulalka teesan waqooyi koonfur ay aad u kala duwan yihiin cimilo ahaan, joog ahaan iyo heerkul ahaanba. sidaas la asligeed faa'iidada koowaad ee dhulka balladh ahaan u teesani waxa uu noqday inay sahlanaato inay faafaan ugu horeyn waxbeerashada iyo xoolo dhaqashadu oo ay ka dhalatay iyana in la kala ammaanaysto teknolojiyadaha iyo hindisayaasha ka farcamay horumaradii ay dhaliyeen waxbeerashada iyo xoolo dhaqashadu. kolkii ay faaftay waxbeerashada iyo dhaqashada xayawaanka waaweyni waxa ay dhalisay in dadku bato oo isu soo agdego iyagoo xoolahoodiina wata halkaasna ay ka abuuranto magaalooyin waaweyn oo camiran. tan waxaa ka dhashay markaasoo ifbaxa iyo faafidda cudurro badan oo laga dhaxlay xoolahan iyo dadkan is agdegan. cuduradii ugu khatarsanaa ee adduunka soo mara ee dhimashada badan dhaliyey sida malaria, hablabaas, daacuunkii, jadeecada iyo kolera waxa ay ahaayeen xanuuno ka farcamay jeermisyo iyo cudurro markii hore xayawaanka bini'aadamku dhaqanayay ku dhacay dabadeed isbedelay oo bini'aadamka badanaa waxa aynu maqalnaa generaal hebel oo taariikhdu xusto guulihiisii. guulahaas in badan oo taariikhda ka mid ah waxaa qayb ka qaatay xanuun iyo cudurro aafeeyey dadyooga lagu soo duulay oo badanaana la socday askarta duulaanka ah. tusaale ahaan adhawalba iyo boqortooyadiisii inka waxaa askaxa ka dhigay cudurro ugub ku ah dadka Ameerikada ku noolaa oo ay la yimaadeen nimanka Yurubiyaanka ah sida hablabaasta oo kale. cuduradani waxa ay sababeen in boqolkiiba 95 bulshadii Ameerikadu u dhimato cuduradii ay keeneen Yurubiyaanku heer ay gaadhay in Yurubiyaanku markii ay gudaha u galeen
Ameerikada ay arkeen tuulooyin iyo deegaamo faaruq ah oo dadkii deegaanaa sii dhammaadeen cudurrada cusub daraadood. Cuduradii Yurubiyaanku keeneen ayaa uga sii horeeyey Yurubiyaanka deegaano aanay aragba ama cagtaba dhigin. Yurubiyaanku iyagu cuduradan waxay la soo noolaayeen qarniyo iyo kumanaan sannadood. Dawooyin bay u heleen ama difaaca jirkooda ayaa xoogaystay oo saameyn badan kuma uusan yeelanayn, inkastoo dhimashooyin badan cuduradaasi Yurubiyaanka dhexdooda ka dhaliyeen, halka Ameerikadu aanay weligood arag cudurro sidan u khatarsan. Sababay ka midka yihiin inaanay dhaqan jirin xayawaano hayn u nool oo badan aawadeed sidaynu soo sheegnay. horumarada ka farcamay waxbarashada iyo xoolo dhaqashadu waxaa ugu horeeyey tii bini'aadamku ku hindisay inuu wax qoro, taasoo albaabada u furtay in dhigaal loo sameeyo culuum iyo aqoon markii hore lagu gudbin jiray af kuna xidhan xusuus. Meeshii ugu horeysay ee adduunka laga hindiso qoraalku waxa ay noqotay xadaaradii Suumer 5,000 sano maanta ka hor. Sababtii ugu weyneed ee dhalisay in qoraal loo baahdaa waxa uu noqday in lagu agaasimo kaydadkii cuntada iyo ganacsigii dalagga beeraha ka dhashay. Qoraalku waxa uu si toos ah uga qayb qaatay ikhtiraacka tiknoolajiyada cusub iyo lafagurka afkaar iyo culuum aan hore loo aqoon. Ameerikada laftigeeda waxa ay ka hana qaaday wax qoriddu Mexico, hase haatee waxa ay ka dambeysay Eurasia iyo Afrika 2,500 sannadood. U kala horeyntani waxa ay dhalisay in lagu kala hortallaabsado horumaro badan. Sida aynu soo sheegnay, dhulka Ameerikada oo u dheer waqooyi iyo koonfur aawadeedna waxa ay dhalisay inaan la kala ammaanaysan wax qoridda oo aanay sidaa ugu sii faafin Ameerikada, halka Eurasia ay markiiba ka hana qaaday oo dhalisay in xadaarado badan ama kala ammaanaystaan hab qoraalka laftigiisa ama ugu yaraan iyagoo ku dayanaya jaarkooda ikhtiraacaan hab qoraallo cusub. qodobadii aynu soo sheegnay oo dhan iyaguna waxa ay dhaliyeen hindisaha agab iyo aalado cusub oo nolosha sii fududeeya. Waxaa la ikhtiraacay giraangiro ka samaysan alwaax oo fududeeyey safaradii dagaalkana lagu geli jiray. Waxaa la bilaabay adeegsiga biraha kala duwan oo loo isticmaali jiray lacag ahaan iyo hub ahaanba. Waxaa la ikhtiraacay baaruudda oo iyana ay ka dhalatay in la sameeyo hub ay ka midka yihiin madaafiicda iyo qoryaha. Waxaa la bilaabay adeegsiga doonyaha iyo maraakiib isaga gooshi kara masaafooyin dheer iyo culuumta la xidhiidha. Intaas oo horumar ah oo ay ku tallaabsadeen Eurasia, Ameerikada inta la og yahay kama aysan bilaabin hindisayaashaas iyo qaar u dhowi. Markii Yurubiyaanku ay ka soo degeen Ameerikada, dadkii boqortooyooyinkii Aztec iyo Inca ku noolaa waxaa hub u ahaa budhadh, faashash dhagaxaan ka samaysan, leeb iyo qaaso iyo wixii la mid ah, halka Yurubiyaanku ku qalabaysnaayeen seefo iyo warmo bir ka samaysan, gaashaan iyo dirac dagaal oo biro ka samaysan, fardo, maraakiib hubaysan iyo qoryo dhacaya. Marka waad sawiran kartaa ama kaaga iyo baqdinta ay ku abuurtay dadkii Ameerikada deganaa awoodahan qariibka ah ee ay adeegsanayeen Yurubiyaanku. hordhicina waxaynu ku soo xusnay in 168 nin ay u babacdhigeen ciidan 500 jeer ka badan. Intaa keliya ma aha ee waxa ay qafaasheen boqorkii ugu awoodda badnaa dhulka, dabadeedna waa ay gowraceen dharaar cad, markaasay weliba caasimadii boqortooyadana galeen. Intaas oo dhanna waxa ay falayeen iyadoo aanay cidi ka dhiman. Sababaha muuqda ee nimanka sidaa u kala fogeysay awood ahaan waxa ay noqdeen jeermis iyo cudurro, seefo iyo qoryo. Laakiin sababaha ugu weyn ee labada qowmiyadood kala geysay waxa ay dhab ahaan ahayd nasiib, oo qolana waxa ay nasiib u heshay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku beero dhul hodan ku ah dalag ku habboon beerasho iyo xayawaano ku habboon dhaqasho, kuwaas oo ay kasii farcameen dadyow tarmay, aqoon lagu tabiyo hab qoraal, teknolojiyado iyo habab maamul oo faafideeda ay saaciday qaaradda oo u ballaadhan dhanka bari ilaa galbeed. Halka qolada kalena inkastoo ay dhul dihin haysteen, hase ahaatee dalagga iyo xayawaanada ka beermay ay noqdeen qaar aad u yar tiro ahaan iyo faa'iido ahaanba. Wixii horumar ah ay ku tallaabsadeenna waxaa dib u dhigay faafideeda, waa iyada oo qaaraddu u dheertahay dhanka waqooyi ilaa koonfureed oo ka dhigaysa dhul aad u kala joog sareeya, cimilo iyo waqtiyo kala duwanna leh. Fiidiyogan waxa aynu si guud mar ah usoo koobnay fikradaha uu xambaarsan yahay buugga Guns, Germs and Steel iyo su'aalaha uu ka jawaabayo qoraagu. Waxaa qorshaha noogu jira inaan soo gudbino xogo kale oo buugga ku yaala insha Allah. Haddii aad ka hesheen xogaha fiidiyowga aan kusoo gudbinay, fadlan asxaabtiina la wadaaga, like iyo subscribe tana ha ilaawina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.